Soomaaliya 2 sano oo xiriir ah roobku si wanaagsan uma diin waana takaliftay in dadka goboladu ay barakac ahaadaan. Hadda waxaa bilaabmaya mid ka mid ah xilli roobaadyada, laakiin kuwii ka horreeyay ayaan si hagaagsan u hoorin. Tirsiga maalmaha sanadka ee hadda lagu jiro waa kuwa ugu kulul. Caasimadda oo ka mid ah magaalooyinka dalka ugu qabow ayaa ah mid heerkulkeedu dhanka kuleylka marka la eego aad uu u sarreeyo. Bal qiyaas xaaladda ay ku nool yihiin dadka abaarta gobolada dalku ay ku hayso. Roob yaridu waa mid qasabtay in dadku ay barakacaan kuwana ay qaxooti ahaadaan. Waxaa jira ururo iyo hay'ado samaysmay markii abaartu dalkan ay heshay, iyaga oo faa'iido ka hela adeega dadkaas ay siiyaan. Roob yaridu waa mid qasabtay in dadku ay barakacaan kuwana ay qaxooti ahaadaan. Waxaa jira ururo iyo hay'ado samaysmay markii abaartu dalkan ay heshay, iyaga oo faa'iido ka hela adeega dadkaas ay siiyaan. Hadda Axmed Daahir Cabdikariim Nuur, gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, ayaa goobjoog u sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka ay kala hadleen sidii barakacayaasha looga dhaadhicin lahaa in dib u dejin ay u sameeyaan dadkaas. Maalin dhaweyd oo bisha 19 ahayd Baydhabo berrina Kismaayo ayaan u soconaa anoo qolooyinka UNHCR-ka oo aan ka wada shaqeyno arrintaas la xiriirta ah. Waxaa la rabaa maamulada in lagu awood geliyo inay u diyaar garoobaan qaab xiriir oo dawladdu ku leedahay ee sahla dadkan inaysan rasmiyan magaalooyinka u degin marka dibkan laga baxo oo abaartu laga baxo ilaahay idinkii roob la helo la siiyo tashiilaadkii dadku dib ugu noqon lahayn hadday xoolo ka dhinteen xoolo loo kabo hadday beer lahayn abuur loogu sameeyo wasaarad baa arrimahaas runtii xoogeeda leh. Sanadihii u dambeeyay waxaa dunida ku soo biiray shirar la sheegay in looga hadlayo kulaylka cimilada oo markaas sabab looga dhigay adeegsiga faraha badan ee warshadaha marka la eego wadamada horumaray. Soomaaliya oo aan lahayn warshado saameyn leh iyo heerkul sareeya sida ay suuragal u tahay roobku inuu yaraado, waxaan weydiiyay Ustaad Cabdiqaadir Axmed Xasan oo qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ka dhiga culumta deegaanka. Survey water waxa ay u yaqaanaan biyaha dhulka dushiisa ah markay uu miibax sameeyaan ee kor tagaan waxay sameeyaan wax la yiraahdo urur ama condensation oo isku tagaan kadib gravity-ga dhulka soo jiito saas roobka asal ahaan ku yimaada. Marka roobka nicmadaas Ilaahay ummadaha ugu nicmeeyay ay kamid tahay oo biyaha oo base u yahay biyahana waa og tahay waxay base u yihiin dhammaan nolosha nooca rabta ha noqoto. Marka waxa la yiraahdaa biyo yarida waxay qayb ka tahay waxa jira musiibooyinka dhulkan ka dhaca waxa loo qaybiyaa laba qaybood. Musiibooyin dadka xaggooda ka yimaado bini'aadanka sida dagaalada kale iyo nuclear-ka hadda la isticmaalayo kale iyo musiibooyin la dhaho natural hazards ama musiibooyinka dabiiciga waxa anaga u naqaano af Soomaaliga lagu yiraahdo. Marka roob la'aanta amba drought-ka waxa la dhaho abaarta waxay kamid tahay musiibooyinkaas qayb kamid ah waay. Marka laga hadlayo anaga waxaan nahay dad muslimiin ah waxa la yiraahdaa dadka dhibaatadooda iyo dambiyada ay galeen iyo waxay qayb ka tahay horta water scarcity amba biyo yarida amba roob yarida ay qayb ka tahay yiraahdaa. Ustaad Cabdiqaadir Xasan oo qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ka dhiga culumta deegaanka ayaa soo jeedinaya talooyin xaalufka dhirta ee sababta ka dhigay in roobku uu yaraado looga hortagi karo. Wuxuu rabaa waxa la yiraahdaa dadka environment ka hadlaan waxay dhahan environment wuxuu la mid yahay lacag bangi ku taalo. Lacagta bangi kugu taalo marka waxay u baahan tahay inaad ka isticmaashid kaliya inta oo faa'iidada ah wax ribax oo fuula inaad ka isticmaashid oo ayadii la faa'iido aan isticmaalin. Marka environment wuxuu u baahan yahay in waxna laga isticmaalo waxna loo reebo. Marka xaalufinta waxay qayb ka tahay waxyaabaha saameynta xoog badan leh oo wadankeena haysta. See loo marka loo xadidi karaa waxa loo xadidi karaa in la helo wasaarad ku shaqo leh oo dadka xaalufinta sameynaayo. Xaalufinta waxay ka timaadaa dhowr waji geedihii oo la guro oo dadka ay u isticmaalaan xaaba ahaan ay u isticmaalaan si looga hortago xaalufka dhirta loona helo deegaan badqaba. Waxaa laga maarmaan ah in dawladdu ay xil iska saarto ilaalinta deegaanka sida in dhirta la jaro iyo wixii la mid ah. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.